السلام عليكم soo dhawaada asxaabe waa tahay daawadayaal baasaboorada ugu tayada wanaagsan caalamka iyo kuwa ugu liita daawadeed barnaamijkeena ayaan ku falanqayn doonaa mid ka mid ah websaydyada arrimaha socdaalka caalamka ee Henley Passport Index ay aqoonsan tahay hay'adda maamusha duulimaadada caalamka ee IATA ayaa qiimeyn ku sameeyay baasaboorada caalamka kuwa ugu awood sareysa uguna tayada wanaagsan ee la qadariyo dadka watana ay si sahlan uga safri karaan iyo kuwa ugu liita ee adag tahay in dadka sita ay si fudud ku tagaan dalal badan oo caalamka ah baasaboorka dalka Japan ayaa noqday kan ugu tayada wanaagsan caalamka oo dadka haysta ay si fudud uga safri karaan daafaha caalamka dadka haysta baasaboorka dalka Japan ayaa dalka gal la'aan ku tagi kara 190 dal oo caalamka ah waxaana ay dalku galka ama fiisaha ay ka heli karaan meesha ugu horeysa ay ka galaan dalalkaas waxa muuqata in qiimeynta la sameeyay ay ugu horeeyaan dalalka qaaradda Aasiya waxaana kaalinta labaad galay dalka Singapore dadka haysta baasaboorada dalalkaas waxay fiisa la'aan tagi karaan in ka badan 190 wadan oo caalamka ah halka kaalinta saddexaadna ay ku jiraan dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo muwaadiniinta u dhashay wadamadaas ay 189 dal ku tagi karaan si sahlanna dalku galka lagu siinayo halka ugu horeysa ay ka galaan wadamadaas dalalka Yurub ayaa sidoo kale soo galay kaalmaha ugu horeeya kuna badan kaalinta tobnaad waxaana kaalinta afraad ku jirta dalka Finland iyo Spain halka dalalka Luxembourg iyo Denmark ay soo galeen kaalinta shanaad Faransiiskuna waxa uu ku jiraa kaalinta lixaad dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa la sheegay inay hoos uga dhaceen kaalmihii hore ay ku jireen dalka Ingiriiska ayaa hoos u dhac ku yimid lagu tilmaamay jaawareer ka dhashay ka bixitaankii midowga Yurub waxaana Ingiriiska uu hadda ku jiraa kaalinta sideedaad Britain ayaa shantii sano ee la soo dhaafay ku jirtay kaalmaha ugu horeeya sida lagu qoray Henley Passport Index dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiimeeyay wadan guul badan ka gaadhay sare u qaadida tayada baasaboorkooda maadaama dalkaas dad badan oo caalamka ka mid ah ay dalxiis u tagaan baasaboorka dalka Imaaraadka Carabta ayaa 10kii sano ee la soo dhaafay wuxuu ku jiray kaalinta 74aad balse hadda waxa lagu qiimeeyay kaalinta 18aad waxaana dadka haysta baasaboorka dalkaas ay dalku galaan tagi karaan 170 wadan oo caalamka ah baasaboorada sanadka 2020 ugu wanaagsan caalamka waxay kala yihiin daawade kow Japan 190 wadan ay ku gali kartaa 2 Singapore 190 wadan ay ku gali kartaa 3 Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka 189 wadan ay ku gali kartaa Talyaaniga oo aynu ognahay xaaladiisa dhaqaale waxa uu soo ciriirsadaa daawada marka la eegayo qiimeynta baasaboorada caalamka kaalinta shanaad Talyaaniga iyo Finland 188 wadan Spain Luxembourg Turkiga iyo Denmark 187 wadan waxaana soo ciriirsanayaan kaalinta lixaad Sweden iyo Faransiiska waxay soo ciriirsanayaan kaalinta lixaad 168 wadan oo aad ku gali kartaa Switzerland iyo Portugiiska Netherland Ireland iyo Austria 185 wadan waxaana soo ciriirsanayaan kaalinta toddobaad kaalinta sideedaad waxay baneeyay oo soo galay wadamada Mareykanka Ingiriiska Norway Greece Belgium 148 wadan kaalinta sagaalaad waxa soo ciriirsaday New Zealand jasiiradda yar ee Malta Jamhuuriyadda Czech Republic Canada iyo Australia 183 wadan kaalinta tobnaad waxa soo fadhiistay Slovakia Lithuania iyo Hungary waana 181 dal baasaboorada ugu liita caalamka sanadka 2020 waxay kala yihiin daawade dalal dhowr ah oo caalamka ayaa baasaboorada dalku gal la'aan lagu tagi karaa wax ka yar 40 dal waxayna ku jiraan lambarada ugu hooseeya caalamka Kuuriyada Waqooyi iyo Suudaan waxay ku jiraan kaalinta 100aad Nepal iyo Falastiin waxay ku jiraan kaalinta 101 Liibiya waxay ku jirtaa kaalinta 102 ayaa soo ciriirstay 730 dal kaalinta 103aad waxa ku jira Yemen waana 30 dal kaalinta 104 waxa ku jirta Soomaaliya iyo Pakistan waana 20 dal kaalinta 105aad waxa ku jirta Suuriya waana 29 dal kaalinta 106aad waxa ku jirta Ciraaq waana 28 dal kaalinta 107aad waxa soo ciriirstay Afghanistan waana 26 dal daawada maanta barnaamijkeena inta ay noogu joogo waxaanu ku saabsanaa baasaboorada ugu tayada wanaagsan caalamka iyo kuwa ugu liita fiidiyowga la akhriina sheer garow. Assalaamu calaykum.